الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي والألبو إذن سلاميا عافية عافمادي برواقة الله ينسي شرع شيطان الله ينك حجابه ورسني وخيري وربركنا الله ينسوي ريو نفتي ديتين نعب سيدينها ودردار ميا الدنيا قيمة ما له توا لقيت جيا وهرك اللي بدي يسجلين إلهي هينا أسطر عورة عورة إسلامك. شيخ علماء أن كمدة مصاريد أي قصة عاد عجيبة ذنك شيكين أي كهالليس سوء الخاتمة خاتمة حن يرنتي كهالليس قصة دانيتو وأنا إتعبت رنتي حاجة على السنة إني كل جن عبرة إنه نقطوك وأنا قاعدنا إلهي أنها نوني الله أنها إسراحي الله أنها جاجيو. شيخ وحجر هواني بعد مطين هواني دي مركي دي متو حلو وياري إن قبر ميت كما يرتا قبر دي مركي لو وياري قبر دي قايلسي waxay tiri qoftan anigu ma mayri karo qoftani waa nooshahay see u mayra qof nool islaantii markii la isku dayay in la qaado meydkeedii kaale bal dhulka ka fuji waaba dagaalamaysaa lamaba qaadayo maba rabtaba sidii qof ma aragtay diidan inaad dhulka ka kiciso kale sida u galgalanayba u galgalanaysaa qoftii meydka ahayd gabadhii meydka meeris waa qaraacanta qofkani caadi ma tiri waa nooshahay ma noolay qoftani waa meyd ma hadlayso wax kale masal laakiin markii la rabo in la qaado meeshii sariirtii meydka lagu meeraa in la saaro nag waa diiday waa rafanaysa ma ogola in la qaado jirkeedii. sheekh culimada kamid ah loo yeeray sheekhi waa yimi wuxuu yiri hal waco gabadhii waxay tiri anigu ma yiri maayo qoftani waa noosha akhtar baa loo yeeray akhtarkii waa fiiri waxa la qoftani waa dhimatay may ayadiina waa tanba dhulkii in laga fujiyo mar rabo diiday. gabar kale hal waco yiri meydka meyrta waa loo yeeray ayadiina sidii oo kaleeto qoftani waxay tiri qofaan maaragtay ma yiri karo ma aha waa noosha haddii la saaray islaantii oo la qaaday sidii loo qaadaba haddii la qaaday oo la saaray meeshii meydka lagu meyrayay sariirtii labada gees oo sariirtii bay qabsatay bal in loo weesaysiiso lama raba gabadhii meydka meyraysa inay u weesaysiiso kaalay ka fujiba sariirtii bay ku dhegantay labada sariirtii ma looma weesaysiin karo labadii gacmood bay labadii sariirtii geesaheeda ku qabsatay kaale gacmaheeda fujiya u weesaysay adigu waa diiday. dhakhtarkiina wuxuu yiri qoftani waa dhimatay war waa nooshay leeyihiin gabdhihii ma mayri karno qoftani waa dhaqaaqaysaa ma ogola in la fujiyo gacmaheedii meeshii ku dhegantahay may yiri dhakhtarkii waa dhimatay qoftani haddii kaale ka fuji gacmihii u weesaysay gabadhii meydka meeraysay waa ka carartay mayri maayo tiro iskaga tagtay gabadhii kaleeto meydka meeraysay sidoo kale taxay tan qofkan waa qof nool ma mayri karno. sheekhu wuxuu yiri ha loo yeero gabdhaheedii ha mayran gabadheedii weyneyd baa soo baxda soo gashay meeshii haddayba gabadheedii aragto hooyadeed say sariirtii ugu dhegan tahay iyo xaaladeedu siday tahay xaalkeedu waaba qaylisa qaylotii ugu daray bay gabadhii ku dhufatay gabadheedii weyneyd oo ka soo carartay oo mayri kari weyd oo ka soo carartay weesadii diiday mayradii waa kan ma ogola weesadii ilaa weesadii loo hagaajiyay waa loo weesaysi ma leh xubnaheedii waa ka gabadheedii buu sheekhu wuxuu ku yiri adigu markii dambe sidii loo mayri lahaaba markii dambe la mayr la iskugu tagiyo la mayr markii mayrtii hawshii la dhameeyay baa sheekhu wuxuu yiri gabadheedii waxaan gabadheedii weydiiyay maxay tahay hooyada arrinteeda camalkeedu maxay sameyn jirtay iska daabay tir arrintaa shaqo kuma lihide markii dambe ilaahay xasuusiyay ilaahay iyo kitaabkiisa iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wa waaniye gabadhii arrintan waa cibre maxay tahay hooyada sameyn jirtay waxay tiri hooyaday waxay ahayd mid dadka dhan la dhex socota namiimo la dhex socota dadka isku dirtay magaalada ilaa magaaladii ay suuqi dhan noo gashay oo dadkii oo dhan barteen inay dadka isku dirto ilaa aan anagii sumcadeeni meeshii ku baabaaday aan dhana hooye meeshaan naga rarno magaalada dhe meelagaala kale meel kale u guurno saana dadkii isku dir iyo belo la dhex socotaa jooji waxaan ilaahay ka baq ay tiri meelna qofkii raba ha maqlo qofkii hadlayna ha hadla shaqo kuma lihi waxaana waa wadaaya hooye ilaahay baa ku xisaabinaya berri ilaah baa kaa dameeya waxay tiri markaan dhinto allah ee xisaabiya bal ka warrama hadalka gefka ee ku hadashay iyadiina waa taa hadda adduunka sidaa su'ul khaatimadaasiita ay ku dhacday iyo dhibaatadaasiito marka maanta aniga adigu jaanis baynu haysanaa ilaahay u toobadkeenna ilaahay u noqono iyo inuu qofku carabkiisa ummadda ka ceshto nabigeenu muxuu yiri calayhi salaatu wasalaam المسلم قفك مسلم كان لجو شيء ألا أوه جانسن كتابك إلهي السنة النبي عليه الصلاة والسلام ومسلم كتوحيد كألا أوه جانسن
man sallama almuslimiina oo qofka muslimiintu ka nabad gasho lisaankiisa iyo gacantiisa ay ka nabad galaan weeye. rasuulku calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi dadka alle agtiisa ugu sharka badan waxa weeye yidhi dadka la dhex socda namiimada, haddana yufsiduuna alaxiba dadka isjecelna fasahaadiya dhexdooda fidnada ka dhex rida. imisaa maantay laba isqaba oo isjecel kala geeyey, imisaa laba isdhashay kala geeyey, imisaa laba walaalo kala geeyey, imisaa kuwa darisa kala geeyey, imisaa qowman dhan iyo dad dhan ku rogmadeen hal kelmaday dheheen u kala qaadeen dadka isku direen. nabigeena calayhi salaatu wasalaam abu hurayra allah ka raalli noqday xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam yiri annagoo la socono meel marayna qabuuro agtooda baa nabigu yiri labadan qab maqlaysa waxaan maqlay qubuurahan inta waxa ku jira laba nin oo la cadaabayo, waxa loo cadaabayo midna wuxuu ahaa namaam dadka isku diroo namiima sameeya, midna midan kaadida iska dhowran baa iska daahir iska hagaaji. cadaab alqabrigi waa barsakhi hawsha taala. nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidoo kale markii nabigeena waa isagii riyada dadka weydiiyey saxaabada markuu subaxdii soo kaco tujiyo ayuu nabigu wuxuu weydiin jiray ma riyooteen. qofkii riyooda waa u fasiri jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. maalmaha ka mid weydiiyey saxaabadii waxba ma aysan sheegin riyaa, haddaba aniga cajab la itusiyey yiri xalay. waxaa ka mid ahaa waxyaalihii uu soo arko barsakha cadaabul qabriga kusoo arkay ninkii intii la jiifiyey biraha hilibka la suroo kale bir oo naar ah wejiga intii laga geliya dhabankiisa dhinac intii laga geliya dhinaca kale looga bixinay isha laga gelinay dhinaca kale ilaa sidaa loogu feero wejigiisii oo maaragtay saas loogu jarjaro birta. markuu bogsado haddana sidii oo kale sidaa lagu wada dhinacba dhinac sidaa loogu wado. muxuu ahaa buu yiri rasuulka calayhi salaam markii dambe markuu weydiiyey malaa'igtii waday wuxuu ahaa baa layidhi qofka kelmad intuu laha ku hadlay kelmadaasayto fasahaadkeeda iyo beenteeda iyo beladeeda iyo isku dirkeeda mashriq iyo maqrib ay kala gaarto qiila waqaalada la wareega. wuxuu yiri maanta dhammadoo la wareega. qofkana beenna intaas ugu filan buu yiri rasuulka calayhi salaatu inuu wuxuu maqlaba uu sheego. ya bal dadka isku diraa iyo fasahaadinaya ka waran imisa dadka la geysi. marka rasuulka calayhi salaatu xadiiskii mucaad sidoo kale 40 ku jira allah raalli noqday muxuu yiri xasanaadkii wanaagii waxyaalihii khayrka lagu helay markuu soo sheegay waxaasoo dhan markuu sheegay waxaa xalanay kan iska qabo yiri carabkan iska qabo. markaas yiri rasuulka allah calayhi salaatu ma naloo qabanayo waxa aan iska daldalayno siri hooyadaa kuweyde maxaa dadka maaragtay waji naarta ugu tuura ilaa carabkooda waxay ka kasbadeen oo ka shaqeeyeen mooyaan. ya imisa dad isdishay oo aakhire isgeysay kelmad qof war uu kala qaado isku diro namiimadaasi ta. rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay inuu ku yiri man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir qofkii ilaahay rumaysan iyo maalinta dambe ya falyaqul khayr hadhow aw liyasmutha. musa cabdullaahi bin cabaas baa waxa layiri radiallahu tacaala canhuma wa ardaah wuxuu ahaa baa layiri mid dhaha carabkiisa intuu qabto wuxuu dhihi jiray carab yahow qul khayr dheh taqni waad qaniimaysanaysaa ajir iyo khayr iyo wanaag baad helaysaa. aamus sharka ka aamus taslam wixii xumaanoo shara ka aamus taslam waad badbaadaysaa. haddii kale haddaadan sidaa samayn sitandam waad ka shallayn doontaa arrintaa. cabdullaahi ibni mascuudna muxuu yidhi allah ka raalli noqdee wax sijni xabsi dheer in la geliyo ku habboon waa carabka in la edbiyo. marka ilaahayna badbaadiyo nafteyda itiinana cabsideed ah u dardaarmay. runta qisada way taabatay haweeneydaa tan qabsatay ilaah wadan kaa magan galay. maxaa aakhira sugaaya? maxaa qabrigii markay sugta sugaaya? maxaa ilaahay subxaana watacaala agtiisa yaala? bal hadalkaasi ku hadasha ka waran markaan dhintahay xisaabi bal ka waran iyo waxay dadka dhan xisay ummadda fasahaadin jirta gabdhaheeda xataa gabadheeda tii war ilaahay ka bar maanta jaanis baynu haysanaa ilaahay u toobad keenna addoommada ilaahayna aan faraha ka qaadno. ilaahay subxaana watacaala kuwa xumaanta ka fogaada oo khayrka ku dadaalo allahina ka dhigo xusnul khaatimana allahina siiyo. laakiin haweenow rag iyo dumarba waa ku socotaan laakiin haddana haween haddaynu nahay gabar kastoo muslimada iyo hooyo kastoo muslimada iyo naftaydaba waxaan u dardaarmayaa cabsida ilaahay. haddana aan isfiirino maxaynu samaynaa maxaynu ku dhex jirnaa waxba ina kama gelin. kii guursaday kii kala furay kii wax helay kii wax waaye kii istagaalay kii jid maray shaqo kuma lihin. aakhiradeenna maanta aan ka fikirno
إلهي حسن الخاتمة إلهان كما قلنا حسن الخاتمة الله نفتينا خير نوكو ختمة أدون كان كتابك إلهي أكون نولانا سنة النبي عليه الصلاة والسلام عورة إسلام كان الله أستر dadka kale cawradooda inaku mashquulin dadka kaararkooda iyo inaku gubanay sumcadooda maanta waa maalin dadkaynu isku dirin isjecel oo ummadaynu kala geynin dhexdoodaynu gelin hal kelmad uu qofku yiraahdo laga yaabaa rasuulka calayhi salaatu wa aabayeeleen inay jannadii darajaad sare geyso hal kelmad uusan u aabayeeleen baa laga yaabaa qofka inay jahannamo meesha u hooseysa geyso ilaah wadan ka magan galna ilaahuna badbaadi naftayda itiinana maaragtay ilaahay waxaan rajeynayaa in ilaahay noo xifdiyo walaalaha sheerka iyo commentka iyo like-ta iyo kulliba rabbi subxaana wataala subscribe-ka kulliba khayr allah idin siiyo khayrka saa u faafinaysaan adinkana khayr adduunya khayr aakhira allah idin siiyo cafiya caafimaad allah idin siiyo allah ina wada siiyo intii xanuunsan allah inoo caafiyo intii kurbaysan kurbadooda allah fayda intii daniya xaajo leh aan macsileen allah siiyo muraadkooda aan macsileen intii dhimatay waalid iyo walaal iyo culimo iyo reer cibaad raxmaan kulla allah u naxariista inta noolna allah inoo xifdiyo reer falastiin reer qase allah u gargaaro islaamka allah mideeyo waxgadooda allah soo celiyo wadankeena wadanada islaamka wallahi islaax allah hagaajiyo xarameenka allah inoo xifdiyo cafiya caafimaadna allah inoo soo yeeriyo walaalayaalow waalidii walaalba waa idin salaamaya allah idin barakeeyo intaan duriyada haysan duriyad khayr qabta allah siiyo caafimaad qabta saalixiina inta haysatana allah inoo barakeeyo inta qoysaska arrimuhu dhexyaala allah islaaxiyo intaan guurkaysan guur wanaagsan allah sii wiil iyo gabarba allah inoo asturo saalixiin baariyiin oo muslixiin allah ka dhigo kuwa saalixiin oo baariyiin oo muslixiin allah ku irsaaqo shar iyo shaydaan allah inoo ka xijaabo kuwa ku noolaada kitaabka ilaahay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam marti ku noqon allah inoo ku daro subxaan allah walxamdulilah walaa ilaaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illaa billah iyo salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo istikfaarta noloshooda ku camira لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير الله ينقدر عفي عاف ما يبر واقنا الله ينسيه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.